waxaan halkan tacsiyan uga diraynaa gobolka Sool caasimadiisa Laascaanood annagu run ahaantii haddaanay madax dhaqameedkii Soomaaliland annagu raali kama nihin in dilka la idin geysto waxaanan kale idin sheegayaa xabad wax ma noolayso wuxuu bay dishaa wax walba waxa fiican in gamcaa la isqabsado annagu wixii garab ah ayaan la garab taaganay annagu raali kama nihin waayo mas'uuliyadiina baa nagayna saarantay inaan annaguna idinku daawano cidda dhibkan idin geysanaysa iyo cidda dilkan idin geysanaysa wajiga labaad xukuumadana horta de waxani waxay ku socotaa waa xukuumadda bay arrinkani ku food leeyay mana aha in ay xukuumaddu sawsi eegto waayo dadkani waa dadka la laynaya waa dadkii aad codka ka doonayseen waa dadkii idin codeeyay waa dadkii maanta kursiga idin soo wada saaray ee sharafta iyo sumcadda idin sameeyay ma aha in dadka naftoodii lagu ciyaaro ilaahayna uu nagala xisaabtamaya waxaanan madaxweynahana baaqan u dirayaa inuu fadhiga ka kaco dadkana waa dadkii soo doortay waa dadkii halkaa keenay mas'uuliyadoodana ilaahay uu kala xisaabtamayo waxaanan leeyahay madaxweyne intaad fadhiga ka kacdo tag bartu dagaalku ka socdo oo nabadgelyada ka soo shaqayso laamaha amniguna waa inay gobolka iyo gobolada kale ay simaan waayo gobolada kale ciddii dil geysata markiiba waa la soo qabtaa laakiin kan marka la dilo halkaas lagaga hadhaa oo ma garanayno iyo maan arkayn wax adduunka ka dhaca maaha maanta nin walbaaba haddii in miisa la dilo uu karayaa intuu qori soo galo uu caasimadda soo dhex galo uu tudoono ku sameeyo laakiin xukuumadda waxaan leeyahay arrinkaa ha iska eegto si degdeg ah uga wax qabato laamaha amniga iyo ciddii ay khusaysay arrinkaasiba annagu diyaar baanuna inaan u baxno oo nabadgelyada ka soo shaqayno xukuumadduna waa inay doorkeeda iyaduna ay qaadataay oo fadhiga ka kacdaa waayo dadkii baaba la laynayaa diiwaangelin waxba ma tarayso ha lagu dhaqaaqo sidii gobolka hadda loo soo nabadgeliyeyn lahaa wassalaamu calaykum